السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بلال مصطفى طاهرة بلو وحقا يتريالي بنرمو يساكو أحدا waxaan maanta bilaabaynaa barnaamijkeena taxanaha aynu ka wadnay page-keena weyn ee waxa weeyaan jiwaayal baryahan aynu ka wadi doonno insha Allah ilaa sanadka kale inuu ka bilaabmayo intuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala markaan jaanisana insha Allah. barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay isqiibee adigu isqiimee. barnaamijka maanta waa isqiimee. marka aydan barnaamijka gelin baan rabaa inaan daweeridii qoro dawo malabka waa taqaanaan malabka ninba siduu isticmaalaa laakiin sida ugu fiican baan rabaa inaan idiin sheego. subaxii markaad kacdo ee soo cadayato ee ilkahaaga iyo hawshaada laba ragcadood tukato koob noocana soo qaad biyo qabow ku shub kulayli markay biyahaasi karkaraan haaf ka dhig malqaacadda caadigeed wax ku cunno dar malabka kurid ku laaq kadibna qur-aan ku akhri intaad ka garanaysa marka intaad ka garanayso qur-aan ku akhri iyo ducooyin iyo ma garatay kadib adoon waxba cunin cab dad bisinka u qabato kadib maasha Allah wax badan baad arki doontaa waa faytamiinka jirka deegaanaha noqoto dee meel kasta noqoto adigu waad arki doontaa. mar labaad waxaad samaysaa habeenkii markaad seexanayso insha Allah taana waad arki doontaa waayo waxaad naftaada la jeceshahay walaalkaa la jeclo. marka barnaamijka inuu gudagelayna qiimee naftaada tusaale yar baan kusoo qabanaya. culummadu way sheegaan culummadan dambe weliba dhalinyartu waa culummo aada u maskax badan khayr allaha siiyee. culummadu waxay noo soo qaadaan caagadda biyaha yar markaad ka iibsanayso waxa weeyaan dukaamada waa cotton centi baa laga yaabaa amba wax yaroo easy-a. markaad ka iibsanayso meel maqaaxi wax laga cabeeya amba kafee iyo amba wax laga cabeeyana waa $1. markaad meel kasii daran tagto haddana waa $2. markaad tagto badda dhexdeeda laga yaabaa oo dad dalxiislayadaa jirayna lagu dhaha waa $10. hadda waa isla caagadii waa biyihii ismay bedelin laakiin maxaa isbedelay bay culummadu dhahaan waa makaankii. marba meeshaad tegaysa isbedesha marba meeshaad tegayso ayaa isbedesha. qofka bini-aadamkuna waa sidaas oo kale. haddaad iminka isleeda adigu bilaa qiimaa tahay bilaa qiimamatida meeshaad joogto bedel taqayur meesha ku samee saad qiimo u yeelato. bal qof walow fikir haddaad maanta dadka aad la hawl yar tahay ka bedelo waxaad arkaysaa bulsho aad ku hawl weyn tahay. qofka bini-aadankii ma noqon karo qof waxa weeyaan aan waxtar lahayn. qofka bini-aadankii ma noqon karo qof aan qiimo lahayn. laakiin marba meeshu Soomaalidu waxay tiraahdaa hal kasta meeshaas dhigtaa lagu bireeyaa. dad qofka bini-aadankuna waa saas oo kale. seed markaa naftaada u qiimeyn kartaa? adiga ayaa naftaada qiimeyn kara. adiga ayaa naftaadana qaayo iyo sharaf iyo qadarin u yeeli kara. adduunyada meeshaad ka tagto waxa weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa joogaa. ilaahay waa kula socdaa risiqaaga waa qaraya wax allaaliya wax kaa naaqusmaya ma jiro. laakiin adigoo haddaad hankaagan aad daciifsado hankaaga laga soo u taagto wax jira ma jirto. markaas bal biyuhu ismay bedelin hawsha idiga sheekeynaya biyihii laakiin kolba makaankii baa isbedelaya. dad badan baa waxay la yaaban yihiin say noloshoodu qiimo u yeelanaysaa. war noloshaadu waxay ku qiimo yeelanaysaa meeshay bilaa qiimo ku tahay noloshaadu ka dhaqaaq. maxaa ku dhigay rag iyo dumarba go soco dhaqaaq. qiimuhu wuu iska imanaya waayo waqtiga lagu jiraa waqti adag weeyaan. waqti xun baa lagu jiraa. maanta qofku wax ku siiya waa kuu manno sheeganaya. kaan wax kaad wax u sheegtay waa kaa sheegaya. kan wax kuu arkaa wuu kaa naxaya. waqti xun baa lagu jiraa. waqtigana maxaa keenay waxa weeyaan ma garan karno. dadkii fiicnaa way dhammaadeen. alimka waxaad aragtay dad saaxiib ka sheekaynaysa qofkaad maalinaysa aragtaan danihiisa markuu kaa gaaro ood waxaad doonayso u qabato rag iyo dumarba qofkaa maalintaasaa kugu dambeynaysa. dadkii fiicnaa way dhammaadeen. waqtigiibaa cararaya. dadku ma xumaan laakiin noloshiibaa waxa weeyaan waxbaa saa u socda. orod baa lagu jiraa. rucleed baa lagu jiraa. marka adigu ma xumid. adigu qof fiican baa tahay xaqiiqatan. laakiin laga yaabo makaankaad joogto bal saaka eeg oo axada bal caawa eeg oo isniina bal beri eeg oo isniina
ka bedela marka adigu qof fiican baa tahay noloshu kaama xumo laakiin adaa aamine shay kastaba meel ayuu munaasib ku yahay meel waxa laga yaabaa aad munaasib ku tahay inaad waxa weeye ka gaabsanayso meel baa jirta lagaa yaaba lagaaga yeeriyo laakiin aad diidayso no marka ha diidin hankaaga naftaada noloshaada waxa weeyaan adaa ilaahay subxaana wa tacaala gacanta kuu geliyey markaad qaar gaadhay markaad qof weyn noqotay markaad talo adaa maanta ilaahay subxaana wa tacaala naftada kugu aaminay adiga ayaa isku talinaya adiga ayaa maanta wixii roon iyo wixii fiican la isgelinaya adiga ayaa maanta ishalaagaya adiga ayaa maanta noloshaada waxa weeyaan diiqad gelinaya adiga ayaa maanta noloshaada diiqad iyo xanuun iyo naxli iyo balaayo iyo xumaan gelinaya laakiin adiga ayaa naftaada ka saari kartaa haddaad maanta tahay adigu qof waxa weeyaan kalsooni iska qaba adduunyadu hadday isku tagto waxay ku yeelaysaa ma jirto laakiin haddaad tahay qof waxa weeyaan isagu qaaf iyo cabsi iyo balaayo iyo daba socdo xitaa bini-aadanka daba guro ee daba dhiga adigana saasuba waxa weeyaan hadhow joolo noqonaysa qofkaan qiimo lahayn marka shay walba wuxuu qiimo ku leeyahay meeshiisi qof waloo meeshaada tag adeero rag iyo dumarba meesha aad ku qiimo jabtay booskaagi maaha boosna kaaga ma bannaanaa laakiin meel baa jirta booskaaga bannaaya meeshaada tag meeshaas waa meeshee adiguba waad garanaysaa laakiin waad ka gaabsanaysaa qiimaha qofka bini-aadanku waxa weeyaan naftu intaad adigu waxa weeyaan talinayso waa intaad adigu iswado maalinta waxa weeye xanuunaad jira geeri baa jirta masiibooyin baa jira hawlo badan baa jira wax kastaa jira waxaa ka mid a waa lagu xiri karaa waa lagu xanibi karaa waa lagu waxbaa kugu dhici kara lug baa ku jiri karta gaari baa ku jiri karaa nacam intaasoo intayna ku soo gaarin ileen bini-aadan baato dadka ay ku dhacaysa masiibaduba ilaahay ba subxaana wa tacaala abuurtay ya ilaahay baa kuwaaba abuurtay subxaana wa tacaala intayna masiibadaasi imaan adigu naftaada waxa weeyaan bedel taqayuru samee naftaada qof fiican baa tahay haddaad dumar tahay haddaad nin raga tahayna qof fiican baa tahay adigu ma xumid waqtigiiyo waayaha xun nin kastoo maanta nin raga iyo qof kastoo maanta dumaraba oo maanta xataa qurbaha ku sugan amba meel kala jooga waayihii waqtigaa dabray waqtigiiyo waayaha xigay laakiin maxaa lagaga baxaa adkayn baa lagaga baxaa adkaysi baa lagaga baxaa raginimaa lagaga baxaa qalbigoo la dhisaa lagaga baxaa dadka qaar la sheekayso la hadal laakiin yayna raadkaaga tegin dadka xataa su-aalo weydii hadalka ku badi laakiin dadku waa laba dadka la hadal anigu bilaal-aan aniga ayaa kulaale qof iska hadal badan baana laakiin wax badan baan ogaadaa dadka markaa la hadlo aykan sidan waxyaalo badan baan ogaadaa hadalkaasi wuxuu inta iskama hadladee oo qofku ila hadlayaana dee iskama dhegeysto laakiin waxyaalo fara badan baa dadka qaar ban xataa isku naqsaqiya laakiin aydiyahay waa shaqaynaya aydiyaha ilaahay subxaana wa tacaala siiyey waxa weeye waa hay maasha allah ilaahay ay siyaadiyo marka adeer qiimaad leedahay noloshu hadday markaa burburto aan kugu dara intaasna int kastayna mawduuca ku jirin hadday noloshu markaa burburto 2 kaa burburto 3 kaa burburto 4 kaa burburto 5 bay hagaagaysaa qofku hadduu intaa aaminsan yahay intuu weydku u imanayo xaqa ilaahay u imanayo waa soconaya waa kii shaqeeyo adduunyadu waa la kala dhiiriyeysan yahay lagama kala qabiil fiicnaa waa la kala ragnimo badan yahay lama kala qabiil fiicnaa ma garatay waxaan juhaladu ka sheekayso ay jaahiliintu ka sheekeeyaan ee waxa weeyaan raggoogu iyo dumarkoogu ayna maanta xishoonaya social media ay la dhex fadhiyaan waxa weeyaan waxaa laga yaabaa dadkaas qaarkood inay jaamacada ka baxeen laakiin waa jaahilnimadu waxa weeyaan waa wax dee waxaa jira qofka bini-aadanka ilaahay siiyo oo cilmiya oo qofka dabar baa jira ilaahay subxaana wa tacaala qofka bini-aadanka siiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala u tara qofku waxyaalo badan ka yaxyaxayo ka xishoonayo oo qofku qajinayo dadkaas aqoonta sheeganaya nasabnimada sheeganaya waxaan kala sheeganaya dadka caayaya dadka fadeexadaynaya facebooka dhinaca ka cararaya waxaan dhigaya waxa ka maqan wixii xakameynayay baa ka maqan iimaan baana lahayn baa waxay ku simsan yihiin waxa weeyaan haddaad rabto inaad caan noqoto caan waaba tahay waa habeen keliyaad qofka caan wuxuu ku noqdaa hal habeen haddaad leef soo gasho dee caan baa taga lagu arkay baa jaw intii u garanaysa waxa dhahaysaa hebel iyo heblaaya caawa leef soo galay saasaad caan ku tahay waqtiga lagu jiro ma garato
marka in bila aadan kula mida oo waxa weeyaan markaad dhimato ee qabriga si u wada gelaysaa sida la soo wada saarayo si la idin wada xisaabinayo inaad waxa weeyaan aad tilmaanto waxa weeyaan ma bila aadan hadaan ahayn waxaan isla qaadqaadina culimadu waxay dhahaan qofku muxuu isla qaadqaadi wuxuu dhigayaa waa saxar bal imiga waxa la macana sidana ana cayn kara bal maxaad dhig gibiga waa xaar baad dhigaysaa bal xaarkaaga inta soo qaato cun ma cuni kartid uraysa qof waxaasi ka socdo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka keenayo oo kadibna hadhow uu nafisayo wuxuu isla qaadqaadi bal waxaas oo fakaa iman lahaa ka hor waxaa dabada kaa imanaya ilaahay uu karaayo waa adiga dadka caaya ee fadhiisan leh ee waxa weeye wax walba samaynaya ee lagaa fadhiisan laayay dad ummadiiba waxa weeye ay kula yaabayso tusaalahaan waxa weeye waxaa samaynayna bal hadduu ilaahay waxa weeye xaarka hoosta kaa iman afka kaa keeni lahaa ka hor ma jirto marka qofka bila aadankii waa inuu u naxaa aakhiradiisa adduunyada ta waa laga tegayaa dad fara badan oo inaga horeey baa ka tegeen nabi maxamed baa ka tegay calayhi salaatu wassalaam dardaarankiisina wuxuu ahaa balagu cani walow aaya adiga dardaarankaaga muxuu noqonayaa markaa nabiga calayhi salaatu wassalaam adiga dardaarka noqonaya waa reeraha si ilaaliya war waxaa si ilaaliya adigoo leef ku jira inaad dhibato laga yaabaa bilaada caayasho qofku waa inuu aakhiradiisa u turaa qofku waa inuu sumcadiisa intuu nool yahay u turaa waayo waxa tahay baa laga yaaba qof laga maarmaya ma tihi qof shaksi baa tahay shaksiga bila aadanka qiimuhu ku fadhiya qofka muslimkiina kaba sii qiimo badanba hataa shaksi tahay qiimaad leedahay qadarin baad leedahay karaamaad leedahay gobonimaad leedahay sharafaad leedahay guul baad leedahay qof la tabayaa tahay qof wuxuun tarayaa tahay ma tihid qof bilaa wax tara qof lagu faanayaa tahay in unbaa ku ilaashanaysaa in unbaa ku ilaalinaysaa in unbaa kugu fikiraysaa in unbaa ku dhowranaysaa in unbaa ku fiirsanaysaa ma tihid markaa qof la yaraysan kara ma tihid waa inaad adigu markaa qiima isku yeeshaan waa inaad adigu qiima isku yeeshaa haddaad adigu qiima isku yeeli weyda cid qiima kuu yeelaysa xaqiiqatan ma jirto ma run baan isku sheegnaa mise been baan isku sheegnaa haddaad adigu walaal qiima isku yeeli weydo walaal cid kuu yeelaysaa ma jirto ninka isagoo sharaftiisii karaabisa ilaasho waaye nasabkiisu dee kor u qaadi maayo haddaad adigu wax iska dhigi weydo walaal cid wax kaa dhigaysaa walaal ma jirto haddaad adigu walaal isqiimin weydo cid ku qiimeynaysaa walaal ma jirto haddaad adigu waxa weeyaan ilaasho weydo sumcaddaada cid kuu ilaalinayso sumcaddaada ku daba qaadaysaa ma jirto marka haddaad meel bilaa qiimo ka tahay od waxa weeyaan qiimahaagu aan saluugsan tahay bedel meeshaas aad baana laydiin salaamayaa waa anigoo bilaal mustafa daahira meel kastoo joogtaan waxaa idin leeyahay noloshu ha idiin fiicnaato aadna waa idiin salaamayaa si qiimo badan baa idiin salaamayaa si sharafi ku jirtaa idiin salaamayaa si gobonimada idiin salaamayaa si walaaltinimada idiin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi walbarakaatu ummadda soomaaliyeed kala socda insha allah beryahan ilaahay subxaana wa tacaala caafimaadka inoo siyaadiye inaan barnaamijku markaa waaqica taagan inaan soo gudbino assalaamu calaykum